السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة الكسر دعوة برامج كأني فهم ككورونها. ما أنت وحني هنا برامج جار هنكور السنة إنه دكتورات فرحية محمد وكسعة أوركا دكاتيرتا سومالي ذا فينلاند. فرحية كسر دعوة برنامج كأن فهم ككورونها. سؤال كواد دوني إن عن كويديو حيتهاي xaaladda hadda meesha ay marayso Finland marka laga hadlayo cudurkan corona bal wax yar noo ifi waad mahadsantahay walaalo waan ku soo dhawahay programka saa loo ogyahay dadka intooda badani sanadkii hore dhamaadkiisii waxaa magaalada Wuhan ee dalka China laga helay qofkii ugu horeeyay uu ku dhacay viruska corona COVID-19 waa virus asalkiisii hore ku noolaa xayawaanka intuuna u gudmin bini'aadamka intaa kadib si xawliya ayuu ku faafay caalamka intiisa kale bishii 3aad sanadkan 2020ka hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxay ku dhawaaqday viruska corona inuu noqday masiibo caalami ah intaa kadibna si tartiib ayuu xitaa ilaa Finland u soo gaadhay waxaa Finland laga xaqiijiyay qofkii ugu horeeyay oo cudurku ku dhacay corona bishii koowaad sanadkan magaalada Rovaniemi ayaa laga sheegay intaa kadibna wuxuu cudurku aad ugu sii faafay caasimada iyo deegaanada u dhow oo uu ka jiro isku socodka ugu badan marka xaaladda Finland maanta marka la eego oo loo garab dhigo dalalka ee qaaratan Yurub iyo caalamka intiisa kaleba dadka cudurka viruska lagu sheegay ma badna dadka u dhintayna tiro ahaan ma badna hay'adda caafimaadka iyo nolol wanaagga Finland Terveyden ja hyvinvoinnin laitos warbixintii ugu dambeysay ay soo gudbisay waxay ahayd in imika lagu xaqiijiyay ilaa 1900 qof in uu ku dhacay cudurka viruska corona iyo 28 qof inay u dhinteen ما شاء الله هذا ما صدق marka laga hadlayo marka cudurkan sidoo horta marka hore dadka ugu dhaca qofka sidoo u qaadaa cudurkan cudurku wuxuu qofku ku qaadi karaa laba hab midda ugu horeysa ay tahay dhibicda ka soo baxda qofka cudurka qaba oo markuu qufacayo hadlayo ama hindhiso dhibicdaasi oo gaadha qofkii kale sankiisi afkiisi ama indhihiisi tan labaad waxa weeyaan qofka oo gacmihiisa ama gacantiisa ku taabto koobtaas ay dhibicdu gaadhay kadibna gacantii ku sii taabto wajigiisa haddii marka dhibicdaasi qalashay oo meel qalalan oo dhibicdiina ku dhacday gacanteedii taabato ka bacdina gacanteedii aan wajiga ku taabto ma igu dhacayaa cudurku markaa oo laba qalalan istaabteen macnaha horta waxay ku xidhan tahay muddada ka soo wareegtay intaad gacanta ku taabanaysid meeshaas dabcan aad isla markaaba meesha dhibicdu gaadhay aad gacantaada ku taabato oo wajigaaga ku taabato waxa suurtagal ah sida inuu xanuunku kugu dhaco oo u qaatid waaya dadka marka qatarta ugu jira cudurkan oo afinishka lagu yiraahdo riski ruhma waa dadkee riski groupka oo dadka xanuunka u nugul waxaa kamida dadka ay da'doodu ka sareyso 70 sano iyo dadka la nool xanuunada joogtada ah oo chronic disease loo yaqaano sida sonkorta ama macaanka dhiig karka wadna xanuunka kaliya xanuunka beer xanuunka iyo xanuunada ku dhaca habdhiska neefsashada gaar ahaan sanbabada waxa kale oo u nugul xanuunkan dadka isticmaala dawooyinka daciifiya jirka bini'aadamka waxa kale la sheegay inay u nugul yihiin dadka miisaanka aad sayidka ama u badan leh iyo dadka sigaarka si badan maalin walba u caba inkasta intaan soo sheegnay ay yihiin riski groupkii xanuunku wuxuu ku dhici karaa qof walba iyo da' walba dadka xanuunka u nugul wuxuu ugu dhici karaa si halis ah dadka caafimaadka qaba inta badan si fudud ayuu ku dhacaa oo waxay ku bogsadaan iyagu inay gurigooda ku nastaan oo hargabkii guriga ku daweeyaan laakiin dadka caafimaadka qaba xitaa dad kamid ah ayuu ku dhici karaa si halis ah
waadiha waad mahadsan tahay. haddii marka dad qof da' ka weyn 70 sano oo kaleeto oo guri kula nool yahay dad tiro badan oo sida caruur oo kaleeto ay gurigii la degan tahay, caruurtiina banaanka u baxaane ay soo cayaaraan ama caruur kale ay la soo cayaaraan, macnaha guriga ay dadka tirada badani ku wada nool yihiin, sidee macquul ku tahay in qofkaas da'da weyn loo ilaaliyo amaba gurigii uusan cudurkii ku dhex faafin? dowladda Finland sharcigeeda ama waxay soo dejisay tallaabooyin lagaga hortagi karo sidoo cudurku ugu faafin dadka. waxaa ka mid ah hababkaas in iskoolada ama goobaha wax lagu dhigto la wada xidhayba, iyo waxaa ka mid ah in dadka waayeelka 70 sano ka badan in la karantiimay oo la yidhi waxa kaliya ay u bixi karaan waxa weeyaan arrimaha muhiimka ah sida inay dukaanka ay tagaan ama farmasiga ay ka soo qabsadaan arrimahooga. markay noqoto dhanka caruurta, horta waxa fiican guriga qoysku inay isla tashadaan oo caruurta iyo waayeelka cid kasta si fiican looga dhaadhiciyo macnaha xanuunka viruska corona sida uu ku faafo iyo muxuu yahay ka hortagiisu. kadibna in laga sii fakaro dadkii waayeelka ahaa ama dadka xanuunka u nugul sidii iyaga looga ilaalin lahaa xanuunka maadaama uu halis ku noqon karo. haddii ay macquul tahay qol u gaar ah ayaa loo diyaarin karaa ama guri u gaar ah ayaaba loo diyaarin karaa, taasina kaba sii fiican tahay. caruurtana in program loo sameeyo oo waalidkii ka fakaraan caruurta inta badan maadaama ay guriga joogaan programkii ay guriga ku joogi lahaayeen. kadibna hadday u baahdaan banaanka hawada inay kasoo qaataan waa muhiim, yani caruurta mar walba waxay u baahan yihiin ciyaar badan, marka guriga in lagu hayaa way adag tahay. waalidka ayaa banaanka u raacaya, hawada laysla soo qaadanaya, waa lasoo lugeynayaa. kadibna waxaa loo sii sheegayaa way imika maxay u adag tahay asxaabta in loo arko, sababtuna ay tahay hadday asxaabtii is arkaan isla soo ciyaaraan aada iskugu dhow yihiin waxa dhici karta inuu qofku xanuunkii halkaa ka soo qaado oo u sii gudbiyo reerka. marka laga hadlayo arrintaasaan weli daba taaganahay, waxaa jirta cudurkan qofka in la karantiilo haddii cudurka ama laga helo ama looga shakiyo. bal karantiilka micnihiisa noo sharax, sidee karantiilku micnihiisu muxuu yahay, see dadka loo karantiilaa, muxuuse qofku sameeyaa marka la karantiilo? karantiinku waa hab loogu talagalay qofka looga shakisan yahay viruska corona inuu ku dhacay, lagu karantiimo inuu gurigiisa joogo siduna u gaadhsiin xanuunka bulshada inteeda kale. wuxuu karantiinkaasi soconayaa muddo 14 maalmood ah, ay sababtuna tahay 14 maalmood gudahooda ayuu kusoo baxaa inta badan viruska corona calaamadihiisu. qofka karantiinka ku jira waa inuu markaaba faamiligiisa ama reerkiisa u ogeysiiyaa oo idhaahdaa waxaa laga shakisan yahay cudurka inaan qabo, inuu ka fogaado weeyaan faamiligiisa, qol u gooniya hadduu ku jira karo way fiican tahay, nadaafadana inuu aada ugu dadaalo weeyaan. qofka karantiinka ku jira waa inuu gurigiisa joogo uuna ka bixin, laakiin dadka guriga isaga la tegani way bixi karaan oo arrimahooga muhiimka ah way kasoo qabsan karaan banaanka. macnaha qofkaas guriga la degano macquul maaha inuu ka qaado miya? waa macquul inuu ka qaado ama gurigii laisla joogo, laakiin ka hortaga ayaa muhiima oo inuu ka fogaado nadaafadda, inuu ku dadaalo sida gacmihiisa mar walba ama inta badan uu saabun ku maydho ugu yaraan 20 second, iyo inuu ka ilaaliyo dhibicda la socota qufaca ama hindhisada inay dadkii kale gaadho, iyo markuu dadkii kale la hadlayo inuu ka fogaado mar walba 1 ilaa 2 mitir. waa tahay waxaa jirta haddaan ka hadalno, haddaan usoo laabano dhaqankeena Soomaaliyeed, haddii qof naga xanuunsado ama qof naga dhinto badanaa anagu waan u tagnaa, dee dhaqan wanaagsan waaye dadkii loo tago lasoo booqdo. dhib ma ka imaan karaa qofka xanuunsaneed soo booqanayso ama qofkii intuu dhintay familkii u imaanayaan oo dhimashadiisii meeshii loogu imaanayo ayadana maxaad ka dhihi lahayd? sidaan hore usoo sheegnay viruska corona wuxuu si xawli ugu faafaa meelaha ay dadku ku badan yihiin. siyaabaha lagu xakameyn karana waxaa ka mid ah inay dadku kala fogaadaan, ay yareeyaan isku imaanshihii.
waxaa markaa mudan reerka geeridu ku dhacday in tacsida looga gudbiyo telefoon ahaan. reerka geeridu ku dhacdayna haddii dad lasoo hadlaan u sheegaan inay u imaanayaan, waxay ku dhihi karaan walaad mahadsan tahay, laakiin xaaladan hadda lagu jiro lama ogola guryaha in laysku soo booqdo, way igu filan tahay inaad telefoonka iga soo tacsadaysay. xitaa haddii albaabka lagu soo garaaco way ugu sheegi karaan, way dhihi karaan wal anaga karantiin baan ku jirnaa, waad mahadsan tahay, tacsidaad noo soo gudbisay, gurigaagaad iskaga laaban karta adigoo mahadsan. waa runta absolutely. waxaa kaloo jirta oo aan doonaynaa inaan ku weydiiyo waxyaaba waxaa jira laysla dhex maro oo aad social mediadana u qabsaday, gaar ahaan anaga soomaali ahaan dhexdeena, in cudurkaanu daawadiisaba ay ku filan tahay toonta in la isticmaalo, in liinta iyo toonta iyo maaragta laisku dhex daro malabka iyo sida macnaha arrimahaas harbalka ah oo la sheegayo. fikirkaas maxaad macquul ma tahay in for example toonto kaleeto iyo isheegeen xabasoodo kaleeto iyo inay cudurkan wax ka qabtaan at least ay kaa caawin karto? horta waxaa fiican la isla fahmo viruska corona, weliba COVID-19 waa virus ku cusub caalamka oo jirka biniaadanka una hore ula kulmin. marka jirka biniaadanka difaac uma leh xanuunkan, qof waliba uu qaadi karaa. toonta iyo liintu waxay ka mid yihiin waxyaabaha kordhiya difaaca jirka, harkabka calaamadihiisana khafiifiya. marka way fiican tahay qofku inuu isticmaalo toontaas iyo liinta iyo fitamiinada kale iyo khudaarta kaleba, sida malabka oo kale aad buu u wanaagsan yahay. xabad soodaduna way fiican tahay, laakiin qofka uu ku dhici karaa viruska corona xitaa isagoo isticmaalaya waxyaabahan. markuu de ku dhacana markuu kugu dhacana macnaha daawo kuu noqon mayaan miyaad leedahay intaas? viruska corona COVID-19 ilaa iminka wax daawo ah looma hayo, talaal lagaga hortagi karana looma hayo, laakiin harkabka calaamadihiisa sida qufaca oo kale, xumada oo kale laga yaabaa inay xoogaa ka yara khafiifiyaan maadaama ay kor u qaadayaan difaaca jirka. waata aad iyo aad ayaan kugu mahad celinayaa. wax kale oo aad doonayso inaad ku darto oo aad la wadaagto bulshada ma noo sheegi kartaa? waxaan sheegayaa horta calaamadaha lagu karto viruska corona. viruska corona calaamado u gaar ah male, wuxuu calaamadaha kala mid yahay virusyada kale ee keena harkabka sida influensada oo kale. qofka viruska corona qaba calaamadaha uu isku arki karaa waxaa kamid ah xumad ama qandho sare, neefta oo qabata, qufac qalalan, murqo xanuun, madax xanuun, calool xanuun, shuban iyo urka iyo dhandhanka oo ka taga. dadka qaar calaamaduhu si fudud ayay ugu dhacayaan, calaamado fudud ayuu isku arkayaa, dadka qaarina calaamado adag ayay isku arkayaan. maasha allah. haye ma ku daraysaa? walaal waxaan rabaa weli inaan kusii daro meeshii karantiinka. karantiinka qofka ku jira hadduu isku arko calaamadaha viruska corona laguna xaqiijiyey cudurka corona inuu qabo shaybaadh ahaan, waxaa qofka la gelinayaa go-doon. go-doonku macnihiisu waa eristus. muddo 7 maalmooda ayuu kusii jirayaa go-doonkaasi, ama ilaa inta uu ka noqonayo calaamad ama astaan la-aan 1 maalin. marka qofka go-doonka ku jira xaafadiisa waxaa la gelinayaa karantiin. halkanay kaga duwan tahay markaa qofka karantiinka iyo go-doonka waxay ku kala duwan yihiin. waxa weeyaan qofka karantiinka ku jira reerkiisa kale karantiinku ma jiro, laakiin qofka go-doonka ku jira reerkiisina karantiin baa la gelinayaa. waxaa markaa mudan in laisweydiiyo haddii xaafadii dhammeydba karantiin la geliyay, yaa u adeegaya, yaa uga soo qabanaya magaalada waxyaabihii muhiimka ahaa. waxa ay xaq u leeyihiin horta dowladda inay markaasoo kale caawimaad ka weydiistaan. waxay caawimaad weydiisan karayaan ehelkooda ama jaarkooda. inta looga soo qabto arrimihii muhiimka ahaa dibadda ayaa adeegii ama wixii kaleba albaabka hortiisa loo dhigayaa, maadaama aan la ogoleyn in la booqdo reerka karantiinka ku jira. maasha allah. aad iyo aad ayaad umahadsan tahay farxiye maxamed oo ka socota ururka dhaqaatiirta soomaalida Finland. barnaamijkeena waraysiga farxiye intaas ayaan kusoo gabagabanaynaa. waxaan rajaynaynaa inaad daawataan, aadna sii sheer garaysaan ood la wadaagtaan ummadda kaleeta ee Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. aad iyo aad umahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.